qodobka koobaad isku day inaad maalin kasta baratid wax cusub, eray bixin cusub, xaqiiqo taariikheed oo aanad hore u hayn, daraasad cusub, luuqad cusub. sidoo kale isku day inaad akhrido buugaag faa'iido leh. hana ilaawin waxa aad akhriday inaad naftaada ku dhaqan geliso, asxaabtaadana la wadaag wixii aad akhriday. haddii aad sidan samayso waxa aad gaari doontaa faa'iido fara badan oo dhanka maskaxda ah. qodobka labaad ku dadaal markasta inaad furfurtid hal xidhaalayaasha, haddii ay tahay kuwa elektarooniga ah ee moobilada lagu shubto iyo kuwa afka la iska weydiiyaba. maskaxdaadu firfircooni ayay dareemi doontaa. qodobka saddexaad ku dadaal inaad cunto cuntooyinka caafimaadka u wanaagsan sida kalluunka iyo khudradda cagaaran. cuntooyinkaasi waxa ay ka caawinayaan kor u qaadidda shaqada maskaxda iyo sidoo kale in jidhkaagu uu dareemo nafis iyo caafimaad fara badan. qodobka afraad xifdi oo qayb suurado qur'aanka ka mid ah. wax qaybista iyo xifdigu waxa ay maskaxda ka dhigaan mid firfircoon oo si fiican u shaqaysa. qodobka shanaad soon waqtiyada qaar, waayo cuntada badani waxa ay dishaa fahamka iyo caqli badnaanta. qodobka lixaad mar kasta ahaw qof nidaamsan. alaabta yaryar iyo qalabka yaalla qolkaaga ee aad maalin walba isticmaashid u kala habee si wanaagsan si aad mid walba si fudud ugu heli karto. qodobka toddobaad joogtee ciyaaraha iyo jimicsiga. jimicsigu wuxuu ka hortagaa ilowshiyaha iyo khalkhalka maskaxda ku dhaca. sidoo kale jimicsiga waxaa laga helaa faa'iidooyin badan. qodobka sideedaad maskaxdaada iyo jidhkaagaba si raaxo ku filan. ka ilaali maskaxdaada daalka badan, una ogolow inay hesho hurdo ku filan. tani waxa ay kaa caawinaysaa in maskaxdaadu ay si fiican u shaqayso oo aad dareentid degenaansho. qodobka sagaalaad mar kasta u fakar si togan ama si positive ah. kalsoonina ku qab awoodahaaga.